Nin beeraley ah ayaa waxa uu isbuucii hal mar aadi jiray magaalada. Wuxuu ka bixi jiray tuulada kadibna wuxuu aadi jiray magaalada. Waxa uuna qaadi jiray subag ay samayso xaaskiisa, kaasoo u samaysnaa sida banooniga oo kaleeto. Waxuuna mid kasta uu ku qiyaasnaa 1 kiiloogaram. Waxa uuna geyn jiray magaalada. Wuxuuna aadi jiray dukaanle oo asaga macaamiil u ahaa. Waa uuna ka gadan jiray, wuxuuna kaga soo gadan jiray sonkor iyo saliid iyo wixii la mid ah. Ninkii dukaanlaha ayaa maalin waxaa ku soo dhacday bal hal mar cabir baashan lagu keenay. Markii uu cabiray waa 900 oo garam, mana dhamo 1 kiiloogaram. Mid kastana waa cabiray. Ninkii arrintii aad ayuu ugu murugooday. Maalinkii dambe uu ninka u imaadana aad ayuu ugu qayliyay, wuxuuna ku dhahay baalada aad iga gaday 1 kiiloogaram ma dhama waa 900 oo garam. Waan ay khiyaantay. Nabigana wuxuu hore u yiri qofkiina khiyaamo naga mid ma ahan. Wuxuuna ku yiri waxna kaama iibsanay orod dhaaf. Orod baashaada la laabo. Ninkii ayaa wajigiisa hoos u dhigay asagoo careysan. Wuxuuna ku yiri anaga waxaan nahay dad masaakiin ah, mana haysan waxaan ku gadano. Kafanta baan baash wax lagu cabiro. Waxaan ku cabiraa sonkorta aad adigana siiso. Miisaanka qaybna sonkorta ayaan saaraa, qaybna waxaan saaraa baasha. Sidaas ayaana kugu keenaa. Ninkii hoos ayuu fiiriyay, wuxuuna ogaaday khiyaanolaha saxda inuu asaga yahay. Sababtoo ah sonkorta ayuu asaga ka dhigi jiray 900 oo garam. Maalintii dambe asagoo ninkii sugayo ay wuxuu arkay dukaanle kale asagii oo ka iibsanayo subagii. Aad ayuu u murugooday. Wuxuuna halkaas ku waayay manaafacaadkii badnaa ee ka soo gali jiray subagaas. Wuxuuna halkaas ku ogaaday khiyaamadii asaga waday in asaga uu ku soo laabatay.